Soomaaliya lama kala goonayo cid aqoonsanayso gobol ka tirsan Soomaaliyana ma jirto laakiin dhalinyarada iyo shacabka baa waqti laga luminaya haddii Soomaali ay yihiin luuqadana noo dhaafaano baasaboorka noo dhaafaano abjinaha ku hadlaana Soomaaliya abjini ku hadla markaad Somaliland ay go'isaan afkan nafa leedahay ma wala siinaayo go'id yaa goyna nin xanuunsan leh aaminsan Soomaaliya inay wadanta nin xanuunsan waxas aaminsan Soomaaliya maamul goboleed Muuse Biixi markuu dhaca taga Muuse Biixi maxaa kala lahay Muuse Biixi waxa igala dhaxay Soomaali in la kala gooyura shacabkan Soomaaliyeed halkaas ku sugan waxaan u sheegayaa walaalayaal wax Soomaaliland la yiraahdo iyo wax dal la yiraahdo iyo wax ixtiraaf la yiraahdo horta cala cashaas oo tima ka soo baxaan baydan ka tahay inaad heshaan qiyaamahan idin ku dhacay dadkiina dhinac ka raaca Catoshire oo ka yaabsaday Muuse Biixi iyo maamulka Hargeysa ama SNM ama wax loogu yeero Somaliland Catoshire waa nin dhalinyaro ah oo caan ka abraha internetka wuxuuna gartay waxay garan waayeen siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ama marar badan madaxweynayaal ka soo noqday wuxuu ku fikir noqday madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna Catoshire muujiyay marka laga soo kaco kaftankiisa iyo xaraamadiisa inuu yahay wadani Soomaaliyeed oo qadiyada Soomaalinimadu ay ku weyn tahay haddaba halkan waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal ka yaabin doona iyo Catoshire oo runta u sheegay Muuse Biixi ama jabhadda SNM ama maamulka Hargeysa ama cid walba oo ku fakaraysa in Soomaaliya ay kala go'do oo waxa haatan loogu yeero Somaliland la aqoonsado intaan u gudin muuqaal la yaab leh halkan kula wadaagi doona dhamaantiin waxaan ka codsanayaa qof kasta oo Soomaalinimadu qalbigiisa biyo dhigtay ayna ku weyn tahay qarannimada Soomaaliyeed iyo in Soomaaliya aysan marnaba kala go'in kalena go'i karinba inoo la igreey muuqaalka si share garay la wadaag saaxiibadaada falowna soo dhaboogana Facebook ee wiil cadoon kuma hasanideen haddaba intaan u gudbin fariin aniga aan la wadaagayo shacabka Somaliland ku sugan iyo madaxda Soomaaliyeedba sidee ayuu u arkaa madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isgoon istaaga Somaliland balada muuqaalkan kooban madaxweyne Farmaajo oo ka hadlaya arintaas marka waa wax taagan qof alla qofkii mas'uul ah oo damiir Soomaali leh waxa weeye inuu u istaago wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay tahay muqaddas maxaa yeelay Soomaaliya lama kala goonayo cid aqoonsanayso gobol ka tirsan Soomaaliyana ma jirto laakiin dhalinyarada iyo shacabka baa waqti laga luminaya waxay maraysaa maanta 30 sano maraysaa Somaliland madaxdeedana wax walba waa sameeyeen meel walbana waa u galeen sida ku hilaayeen aqoonsi macnaheedu waxay tahay dawlad Afrika ka tirsan oo la kala goonayo ma jirto maxaa yeelay Afrika oo dhan yaa fragile ah haddii la kala gooyo Afrika oo dhan baa kala tagaysa haddaba marka laga soo tago Catoshire ayaan waxba hambayn oo wixii aniga aan sheegi lahaa haddii la weydiin lahaa iyo waliba wuxuu si naashnaashayba ugu jawaabay wuxuu ka aaminsan yahay goon istaaga Somaliland waxa loogu yeero mar aad ah Somaliland waa maamul goboleed waxay la mid tahay Puntland iyo Jubbaland dada xanaaqay oo Catoshire ma aha maamul goboleed nagu tilmaama adima saana dhahay anay wax sidaas oo dhaay horta ma rabo wadanka Soomaaliya in la kala qaybiyo maanta waxaan ogaa Somaliland waxa ka badan dadka Muqdisho ku nool Somaliland waxa la sheegay 1 milyan inay ku noosha Muqdishona 3 milyan ay ku noosha su'aasha aan ku weydiinaa haday Muqdisho dhaada ka wara anay wadan Muqdisho la leedahay ma yeeli waa may marka dadka Somaliland anay xumaata ma u qabo dhibaatada iyo caayda iyo xumaatada ay wadaan ay iga joojiyaano Somaliland inaad tagto magayaa Somaliland maamul goboleed Muuse Biixi markuu dhaca taga Muuse Biixi maxaa kala lahay Muuse Biixi waxa igala dhaxay Soomaali in la kala gooyura Soomaalinimadu diidan Muuse Biixi kaliya maana shacabka halka deganaa shacabka oo dhan ma qaar asaga oo shaafta siya jiro oo Soomaalinimada waa neceb haddii Soomaali ay yihiin luuqadana noo dhaafaano baasaboorka noo dhaafaano abjinaha ku hadlaana Soomaaliland abjini ku hadla markaad Somaliland ay go'isaan afkan nafa leedahay
ما والله سينا قويت يا قوينا نين حنوصل ل آمين سومالا إنا ودنتا نين حنوصنا وحس آمين marka dawladda iyo shacabkooda waxay aaminsan inay dawlad yihiin dawlad ma waa xanuunsan dadka sidaas aaminsan xanuun dhimarkaas marka 30 sano ku dhawaaday waxay raadinayaan ictiraaf badda ka doontaan maxaa badda maaragtay u geynaysaa waxaa wadamada qaar inay hadda wadan waxa la haayo Taiwan aqoonsaday Taiwan intee la wadan maaragtay Shiinaha ka naftiisa go'aansan Soomaaliya camal wadan asi dagaal ka jiro sheegaysa car wadan weyn ictiraaf Soomaaliyaasi dhanka Soomaaliya inay ictiraaf helayso oo aaminsan waa nin xanuunsana dhigay ala xirxiro quraan saar haligi ilaaj adiga hadii laga yaabo Soomaaliya aad taasoo caqabad ku noqonayo lugaan ku galaa akhwada sheegis hayta dhulka meeleen dhulka ilaa iskale iyaga taliya Soomaaliya iyaga taliya Muuse Biixi wuu dhacaawe haddaba ugu dambayn aniga kuma dheeraanayo fariinteeda wax yar oo kooban madaxda Soomaaliyeed ama Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hogaaminaysa fariin baan u dirayaa waa inaysan wax dambe cid dambe aysan shuushaamin cid dambe aysan baryin marka la taagan yahay qadiyada Soomaaliya iyo Somaliland waxay leeyihiin waana la xasuuqay war Puntland dhulka loo yaqaan ama waqooyi bari la oran jiray xilligii dawladda Maxamed Siyaad Barre ma ahayn miyaa kuwii diyaaradaha lagu rusheeyay ma ahayn miyaa kuwii coolasha sunta loogu shubay ma ahayn miyaa kuwii intii beel ahaan loo bartilmaameeyay Siyaad Barre uu toogtay indhahoodii saraakiishoodii culimadoodii iyo wax walba waa dhulka maanta loo yaqaan Puntland xilligii dawladda Maxamed Siyaad Barre loo aqoon jiray waqooyi bari jabhad weeydan kaga horeeyeen oo jabhadii ugu horeysay oo Siyaad Barre ama ciidamadii qaranka Soomaaliyeed inta banaanka u baxaan xabad ku soo ridaan dadkaasi ahaayeen waa hadaad caqli leedihiin waxaan la hadlayaa SNM baan la hadlayaa waa nimanka ku fakaraya in Soomaaliya ay kala go'do markii halkaas joogto waan la xasuuqay diyaaradaana la ku garaacay baa dhahdaa waa kula qabaan Soomaalinimadana cid ka jecel ma jirto ilaa xilligan way raadinayaan tay qiyaamahan hadii la waayo xataa way raadinayaan waa dadka Puntland ama waqooyi bari dhulkii la oran jiray waxa ku soo hartay waan go'ayaa baa tir yaa tahay adigu markaad leedahay waan go'ayaa afkeese ku hadlaysaa adigu waxa tahay Hargeysa iyo Burco runta markaan ku sheego waqooyi galbeed ama dhulka maanta adiga aad leedahay Somaliland waxa kula degan reer Boorama reer Laascaanood iyo reer Ceerigaabo ayaguna ma ogola in Soomaaliya maalin ay kala tagto maalin ay kala go'do su'aasha kale aan ku weydiinayo madaxda Soomaaliyeed loo baahan yahay inay weydiiyaan waxay tahay war adigu dhulkan Ingiriis baa gumaysan jiray xornimadiisa uu dagaalantay waa maya hal nin oo beesha Hargeysa ka soo jeeda oo xornimadii Ingiriiskii markii dhulkan ku habseen la dagaalamay inay soo raacaan ma ahane xabad ku riday xataa dhagax ku riday hadii la soo helo abaal marin baa iga sharada qof kasta oo magaciisa soo qora xataa hadii uu jiro nin Ingiriis la dagaalamay oo Hargeysa ka soo jeeda abaal marintaas gorgortan malahna farahana ka saaraya su'aashaasna hal la weydiiyo dhulkan dadkan shacabkan Soomaaliyeed oo halkaas ku sugan waxaan u sheegayaa walaalayaal wax Somaliland la yiraahdo iyo wax dal la yiraahdo iyo wax ictiraaf la yiraahdo horta calaacashaas oo tima ka soo baxaan baydan ka tahay inaad heshaan qiyaamahan idin ku dhacay dadkiina dhinac ka raaca awood baan leedin isticmaalayn ma taqaanaayay xoog baan leedin isticmaalayn waa inta yar ee aaminsan ma wajiraan badad Soomaaliyeed oo Hargeysa iyo Burco iyo Berbera ku sugan oo aaminsan in Soomaaliya kala go'ayso ma wajiraan laakiin waa shakhsiyaadka kooban ee lacagta ku qaata in ay jirto Soomaaliya kala go'aysa dadkaas aan la hadlayaa fariinteedu waa intaas madaxda Soomaaliyeed runta waa in la isku sheego marka la wada joogo meelaha laga wada hadlayo qadiyada Soomaaliya iyo Somaliland anu ma aaminsanay qadiyada Somaliland inay jirto ma aaminsanay waa dadku wada Soomaaliyeed waxa afduubka ku haystaan waa koox yar oo loo magacaabo SNM si sheer garay saaxiib aad baan idin salaam